حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جئنا من سكن طيبا سكن طيبا من سكن طيبا ونال درى المعالي ألف صلى الله باعث الآمال في ليل الحيارى حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا سكن طيبا من سكن طيبا ونال درى المعالي سيدي ما كان ينطق عن هواه حبيبنا قوله أوحى به رب الجلال ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا سكن طيبا من سكن طيبا ونال درى المعالي ألف صلى الله لك من أهدى محاسنه الزمان حبيبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، والله المسجد اقرأ وحول كسر دوينيا مؤتمر كي أفراد اللودي جري دنيردا ودن كدنمارك. مؤتمر كان مجلس وحنوبح إن سنة كان دونتي بالبلدة محاضرة أي نقول دونا وحوي محاضرة صدحات إن شاء الله تعالى وحين نقول دونا الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل. محاضرة المجلس وحلا إلى قرء آخري إن شاء الله تعالى وحن كسر دوينيا يا شيخ مصطفى حاجي إسماعيل، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله waxaynu isku dayi doonaa wakhti kooban inaynu ku tilmaamno mucda ama gulucda warka aynu rabno oo ah wax akhris iyo wax qoris. waxaa wada ogsoontihiin waxyigii ugu horreeyey rabbi soo dejiye lagu soo dejiyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka bilaabmayey iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsana maa lam yaclam. aayaadkaasi dhowrkee ugu horreeyey qur-aanka ee soo degay ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu kula hadlayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam. nebi moxamed ummi buu ahaa, waxna qorin waxna akhrinin. wakhtiga ay soo degtayna waa qarnigii 7aad oo aan qiraa'ada iyo wax akhriska wakhti ay faafsan yihiin aanay ahayn. haddana min bayn alkalimaat uu qur-aanku ka kooban yahay, ilaahay wuxuu ka doortay eraygaa iqra inuu ka bilaabmo waxyigii uu loo soo dhiibay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. isla aayaddaasi laba jeer ama aayaadkaasi laba jeer bay kelimatu iqra ku soo aroortay. iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram. isla aayaadkaasi
adawaadka wax lagu qoro ilaahay ku tilmaamay. callama bilqalam, qalin baa ilaahay ka warramay, iyo masalatu lcilm. arrimahaasoo dhan markaan soo koobo oo soo duuduubo waxa ay tilmaamayaan qiimaynta islaamku siiyey wax akhriska iyo meesha uu dhigay. aayad badan oo qur-aan oo kalena ilaahay uu ku tilmaamayaa wax akhriska iyo wax qoristo ay ka mid tahay, iyana aayaadkii ugu horreeyey ee kuwa ku dhadhawaayay waxyiga soo degay, nuun waalqalam wamaa yasturuun. ilahay wuxuu ku dhaaranayaa qalinka iyo waxa la qoro. waxaa ka mid a faqra'u maa tayasara min, waxaa ka mid a walyaktub kaatibun baynakum. yacni ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan badan buu kaga warramayaa masaladatan. markaan isku dayo markaan dhowr jaanib inaan ka warramo, ugu horreyn waxaan ka warrami doonaa qiraa'ada iyo umamku siday u arkaan. ummadda wax akhridaa bay yidhaahdaan waa ummad koraysa ama hore u socota. umamka koraya maantana ama horumarka la sheegayay xadaaradeed gaadhayna waxyaabaha lagu yaqaanay caanka ku yihin waxaa ka mid ah inay aqoonta siiyaan maalgelin fiican ama aqoonta inay maal gashadaan. umamka dib u dhacay maanta dunida waxa lagu yaqaano waxaa ka mid ah inay waxbarista iyo aqoonta waxa ugu yargeliyaan. ikhwati fi lcaqiida, waxaan leenahay qiraa'adu waxay culammadu yidhaha waa ghidaaun lilcaql, waa cunnada ama fuudhka ama raashinka la siiya caqliga bini aadamka ah. waxaa la yidhaha waa rafcun liljahl, waa qofku aqoon darro iska fogeeyey. waxaa lagu tilmaamaa waa tawsiicun lilmadaarik, waa garaadka qofka bini aadamka garashadiisa iyo garaadkiisa oo la ballaarinayo. waxaa lagu tilmaamaa inay tahay imtaacun linufuus, waa waxyaabo qofku uu ku madadaasho oo wakhtiyadiisa faadiga uu yahay uu nafta ugu raaxeeyo. waxay yidhahdaan waa tasafux licuquuli الrijaal. wax akhrisku waa beyjkan aad rogaysa, waxaad rogaysaa bay leeyihin cuquushii bini aadamka ee taarikhda bini aadamka soo martay oo dhan, mid aad la nooshay iyo mid qarni hore dhintayba wixii uu qoray markaad rogayso waa cuquusha bini aadamku waxay dhashay oo dhan oo aad rogayso. hanashada uu qofku waxbarasho ama wax akhris uu hantaa waxay qofka ka xoraysaa baa la yidhaahaa cidhiidhiga dhuleed iyo zamaanba. oo qofku dhul badan oo aanad adin ku gaadheen baad qiraa'a ku gaadhaysaa, dhul badan aan wakhtigaagu ku gaadhsiiyeen ama aanad noolaynna wixii joogay baad akhriyaysaa. waa daaqad bay yidhahdaan laga daawado alfikri alinsaani, qofka bini aadamka iyo aqoontiisaba waa daaqad laga daawado. saynu wada ogsoonaynaa aqoontu waagii hore waa laysu gudbin jiray shafawiyan, afkaa laysaga gudbin jiray. marka qof dhintaba, qof aqoon-yahani markuu dhintaba waxay la micno ahayd laybareeri gubtay. laakiin markay kitaabadu bilaabantay ama qoraalku uu bilaabmay, aqoontii waxay noqotay mid dhaxal la reebi karo noqon karta oo tawsiiq iyo qoraal iyo books ku guda jirta oo dib loo baran karo. casrigan aynu hadda joognana waxay dhahdaan aqoonta ama waxbarashada ama wax akhriska iyabaaba isku xidhmay quudkii dadka. oo waxay leeyihiin hadda waxaa dunida sii cidhiidhiyoobaysa shaqada uu qaban karo qofkan aan waxna akhrinin waxna qorinin, shaqada u bannaan baaba sii yaraanaysa. ummad kastoo bay yidhaahdaan aan dhasheeda iyo ubadkeeda iyo dadkeeda u tababarin wax akhris joogto ah iyo inay koraan, xataa hadduu waxbartay bay leeyihiin wuu ka dhacaya. waayo maanta waxay yidhaahdaan aqoontu 15% wax ku dhodhow ayaa sanadkii ama dhowrkii sannadoodba aging uu ku dhaca, gabooba. marka fanni kastoo aad maanta baratay waxay leeyihin haddii aanad la soconin aqoontaadu way gaboobaysaa, saa daraaddeed waad ka dhacaysaaba meesha. idan qiraa'adu waxay yidhahdaan maanta dadka aan ku dadaalin qiraa'adu wuxuu la mid yahay yacni ummiya ama aan xadaaradda ka hadhay. bale waxaa la tilmaamayaa
aqoonta maanta dunida taalla bay leeyihiin 30 sannadood ugu dambeeyeen 90% wax ku dhadhow waa soo kordhay. idan ninka dhakhtarnimo bartay qabla 30 sana ee aan refreshment dib u samaynina dib loo cusboonaysin wax ma oga. ولذلك أخرسكو عالم الرياضات الفرنسي ريني ديسكارتس ayaa wuxuu odhan jiray qiraa'ada kitaabka fiicani kitaab fiican markaad akhrido waxay la mid tahay buu yidhi adigoo la doodaya cuquushii ugu waaweyneyd ee dunida soo martay buu leeyahay. ama waxay ku tilmaamaan kitaabku bay idhaahdaan ama buuggu waa minaara waa calaamad bixaaru zaman alcadiima dadka loo taagay ay wax ku hagtaan calaamadahan wax lagu calaamadsado ayuu ka mid yahay. dhan kale markaan u tilmaamo umamka la rabo inay dib u dhacaan maalan maraykanka dadka madow baa lagu gumaysan jiray beri dhaweyd baa la xoreeyey. qaanuunka maraykanku ee ninka cadi uu qortay waagaasi wuxuu sheegayey ninka madow in laga mamnuuco inuu waxna akhriyo waxna qori karo waayo bay idhahdaan hadduu wax barto tamarud baa bilaabmaya. xataa bay idhaahdeen injiilka looma ogola xataa baybalka ninka madoobe inuu akhriyo umay ogolayn. waa qiraa'a ninka madoob oo dhan kiisa addoonka iyo kiisa xorkaaba laga mamnuucayay. bale waxaa la idhahdaa qaanuunkii wakhtigaasi waddanka maraykan ka jiray wuxuu ku xukumayey ijraam ama dambiile inuu yahay ninka madoobe isku daya inuu wax akhriyo ama wax qoro isku daya. waxay tilmaamaysaa waa taariikhu lqiraa'a alberto manuel suu ku soo naqlinayo argentiniga ninkan ee kitaabka qoray. waxay tilmaamayaan oo masaladan ay sheegaysaa umamkii la rabay in la gumaysto ama la celiyo qaabka ugu fiican ee loo gumaysan karayo wuxuu abaa la leeyahay in laga tirtiro inay wax akhriyi karaan ama wax qori karaan in loo diido. maantana waxaynu naqaanaa umamku siday u kala horeeyaan in lagu qiimeeyo marar badan illiteracyga ama wax qoraan la'aanka iyo wax akhris la'aanka. waxaad sawirtaa maanta idinkoo denmark jooga oo aan wax la akhrinin bal sawir iyadoo aan qofku aanu akhriyi karaynin waddada boodharka ku qoran ama khariidadaha maabiska meelaha yaalla ama raashinka waxa ku dul qoran ama daawada waraaqda yare dusha kaga qoran ama alaabtaad soo iibsanayso waraaqahan yaryare la socda dadku aan wax akhri karayaan noloshu may kala socoteen weeyaan. qiraa'adu marka waxaynu tilmaamaynaa inay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosha. si wakhtiga aan isugu filaysiiyo marka waxaan tilmaami doonaa dhowr shay. qayb waxaan tilmaami doonaa wax akhriska iyo kitaabada iyo waxa fudaydiya. qaybna waxaan ka warrami doonaa salafkii ummadda tan iyo dadkii hore ee saalixiinta ahaa iyo wax akhriskoodu noocu ahaa. qaybta koowaad waxaan ku tilmaamayaa qofka cimrigiisu wuu yaryahay si aad cimri badan u jiri karto waxa ugu fiican ee laga faa'iideeyaa waa wakhtiga. wakhtigana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalinta qiyaame inaan dadku qofna meeshiisa ka dhaqaaqaynin 4 su'aaloodoo la weydiiye mooyaane. 4taas su'aalood waxaa ka mida buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam can cumrihi fiima afnaah wa can shabaabihi fiima ablaah. cimrigiisii wuxuu ku bixiyey qofku saacad kasta iyo daqiiqad kasta aakhire waa lagu weydiinaya. inaad tv iska hor fadhiday inuu boodboodkaaga dhammaaday wixii aad qabatay. waxaa kaloo lagu weydiinayaa siiba wakhtigii aad dhallinyarada ahayd. qofka dhallinyaradii waa wakhtiga aad wakhtigaaga keligaa leeday ee aad xooggan tahay ee wax walba ay soo korayaan wax waloo jidhkaaga ka midiba uu sii fiicnaanayo wakhtigaa wixii aad ku qabatay. waxyaabaha ugu quruxda badan leh markaa wakhtiga laga faa'iideeya waxaa ka mid ah in wax la akhriyo. imaam ibnu aljawsi ayaa wuxuu tilmaamayey maadaama qofku zamaanku uu cimrigiisiiba yahay ma habboona buu yihi wakhtigiisa wax ka mida inuu lumiyo ee afdal alacmaali aw alaqwaal inuu kaga faa'iideeyo ayaa ugu khayr badan.
qiraa'aduna waa waxa ugu badan ee wax laga faa'iidaysan karo. masaladan dantan kale ayaan idin tilmaamo. qofka maalintii 10 daqiiqo wax akhriya, waxay yidhahdaan daqiiqadii hal page baa la akhriyi karaa. qofka 10 daqiiqo maalintii wax akhriya 10 page buu akhrinaya. hal sano haddaad maalin kasta 10 daqiiqo akhriyaysay, macnaheedu waxa weeyaan 3650 page baad akhriday. waa mawsuuca, waa encyclopedia. that means 10 volumes baad akhriday. 10 volume mawsuuca xadiida ama mawsuuca tafsiira ama kan hal sano gudaheed baad ku dhammayn kartaa adigoo akhrinaya maxay 10 minutes only. 10 daqiiqo adigoo wax akhrinaya haddaad joogtayso oo maalin kasta 10 page 10 daqiiqo aad akhrido, sanad markaad joogto yani bil kasta hal volume baad dhammaynaysaa. volumeka 300 page meelaha kama badna, 360 page. macnaheedu waxay noqonaysaa bil kasta inaad hal volume dhammaynayso. wax 10 volume ka badan ayaad dhammayn kartaa sanad gudihii. haddaad nuso saaca wax akhrinayso maalin kasta ka waran, haddaad maalin kasta saacad wax akhrinayso ka waran, maxaad baran kari lahayd? cilmi intee leeg buu noqon lahaa cilmiga aad baranaysaa? sidaa awgeed waxaan leenahay ikhwati fi lcaqiida, maalin kasta haddaad 2 bayt oo gabaya qaybayso 10 daqiiqo gudahooda aad isku dayda inaad ku qaybto, 10 sannadood waxaa laga yaabaa inaad ku qaybto 7000 oo bayt wax ka badan 7000. waa mutuunta cilmiga uu u baahan yahay nin kasta oo dhallinyaro oo raba inuu cilmi sugaa. dhammaanteed 10 sannadood buu ku qaybi karaa isagoo maalintii 2 bayt oo qura qaybaya. 2 bayt oo qura haddaad qaybto 7000 oo alfiyaad qaybi kartaa. macnaheedu waxa weeyaan mutuuntii cilmiga ahayd aad u baahnayd oo dhan laabtaaday kugu jiraysaa. walidaalika waxaan leeyahay kow markaan qiraa'o ka warramayo waxa koowaadaan ka warramaya waa waqti. inuu qofku waqtigiisa baykhaamiyo oo ilaashado oo isku dayo wax faa'iido leh inuu geliyo. 2 waxaan tilmaamaya waxa weeyaan qiraa'adu hadaf bay u baahantay. in hadafka la taxdiidiyo, goolka aad qiraa'ada ka leedahay. oo qiraa'ada laguma qiimeeyo tirabadnideeda ama dherarkeeda, ee waxaa lagu qiimeeyaa diqadeeda iyo qiimaheeda. yani waxaad akhriyaysaa siduu faa'iido u leeyahay. marka qofka raba inuu wax akhriyaa ee dhallinyaradii waa inuu isweydiiyaa, maxaan akhrinayaa? sabab baan u akhrinayaa? qaabkaan u akhriyaa? maxaan akhrinayaa waa inaan isweydiiya. waxaad akhrinaysa oo dhima hadday tahay manchester baa liverpool ka badisay, waxaad habeen iyo maalinba akhridaa hadday tahay waxba faa'iidi maysid. waxaad maalin iyo habeenba akhridaa hadday tahay jariidada sheekadan bejka koowaad ku qoran something waa laga yaabaa languagekaagu in yar inaad wax akhriyi karta u yaro dhismo, laakiin qiimo nololeed ma leh. wax kaasoo raacaya ma jiro. waxaad akhrinaysaa markaa waa inuu noqdaa wax hadaf leh. weliba wuxuu siday u kala muhiimsan yihiin qofka waa inuu akhriyaa. kow waxa waajibaadka ku ah waa inuu akhriyaa ee diintiisa kaga waajiba. 2 waxa takhasuskiisa waa inuu akhriyaa ee uu baranayo. dadka badh baa wax akhriya haddana ummiya. adigoo wax akhrinaya si aad u tukata haddaad garan weydo qiraa'adaadu faa'iido ma leh. professoraan salaada tukan karayni ama garanayni salaadiisa waxay ku ansaxaysaa qiimo ma leh. idan waxaad akhrinayso waa in la garan karaa hadafka aad ka leedahay. qaabka wax loo akhriyana waa kala gadisay, waayo waxaad akhrinaysa buu ku xidhayay. mar waa qiraa'atu tasliya oo waad iska rogrogaysaa, yani buug taariikha ama sheeka ama novela ama wax la mida sida loo akhriyaa waa si gaara. buug cilmiya markaad akhrinaysana waa qiraa'atu tafahum wa tadabbur, waa ka gadisantay waayo sentenisyada dhexdooda la akhriyaa. markaad qiraa'a istikshafiya mutaalaca guud markaad samaynayso qaabka loo akhriya u kala gadisan yahay. idan buugga aad akhrinayso iyo hadafka aad ka leedahay waa in la garan karaa.
laakiin qiraa'adu waxay u baahan tahay sabir iyo isbaris. wax walbana sabir baa lagu gaadhaa. Thomas Edison odagii la odhan jiray ee Maraykan, marka laga reebo casrigan dambe ragga wax soo saaray, dadkii hore ama qarnigii 20aad qaybtiisii hore ilaa iyo intii la garanayo waa ninkii ugu badnaayay inventions lahaa, wax soo saar, ikhtiraacad. iyo baan filayaa 93 baateen buu leeyahay. 9 ka mid waa dhisayno, 1480 baateen oo ah qalab uu soo saaray. ayaa waxay weydiiyeen cabqarinimadu maxay ka koobantahay bay yidhaahdaan. ma ilhaam baa wuxuuna ilaahay kugu ilhaamay fikrad kugu soo dhacdayba? markaasaa wuxuu yidhi 1% na waa ilhaam, 99 na waa carqu jabiin buu yidhi, waa dadaal iyo sabir. waxaan uga jeedaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun. waxaynu u baahan nahay qiraa'ada markaynu leenahay wax akhri. marka hore qofku qiraa'ada uu bilaabayo way ku dhib badan tahay. maalmaha hore waa daal miidhan. waxay u baahan tahay inaad qiraa'ada si macquula u bilowdid. waxaad u baahan tahay inaad mumaarasa ku celcelin aad heshid. waxaad u baahan tahay kutubtaad akhrinaysa inay mustawahaaga tahay. haddaad kitaab kaa weyn isku rarto, kutub culammada loogu talagalay, fatxulbaari haddaad tidhaahdo qiraa'a ka bilow, waxba ka keeni maysid. fatxulbaari ardayba looma qorin, waa kitaab culamo loogu talagalay. idan kitaabka aad rabto inaad akhridaa inuu mustawahaaga yahay. waayo ninka kaatibkii markuu kitaabka qorayo dad gaaruu ugu talagalaa, maaha kitaabku iska obin qof waliba u akhriyo. waxyaabaha fududaynaya inaad wax akhrido markaa waxaa ka mida baynu leenahay. kow inaad ilaahay tala saaratid. 2 dadka aqoon-yahankaa inaad la tashatid ee sabjiga kan ama fanniga kan kaaga aqoonta badan leh. 3 inay mar kasta maskaxdaada ku jirto dadka dadaala iyo wax soo saarkooda iyo dadka iska fadhiya iyo wax soo saarkooda. haddaad maalin kasta 3 saacadood TV daawato, marka la isku dardaro waa imisa? waa kumaankum saacadood bay noqonayaan. laakiin maxaa ka soo baxaya? alxaasil waa ibir, waxba ma jiraan. laakiin haddaad wax akhrinayso 3 saacadood maxaad u malaynaysaa? maxaa ka soo bixi lahaa? yacni cabqari, adduunka aqoon-yahanka ugu weyn baad noqon kari lahay. haddaad maalin kasta 3 saacadood wax akhrinayso, encyclopedia guuriyaad noqon lahay. qof wax walba la weydiiyaad soo bixi kari lahay. wax akhrisku wuxuu kale u baahan yahay kow taqyiid alfawaa'id. waxay culammadu yidhaahdaan buuggaad akhrinayso lama xifdiyi karo inta badan, qofku waxbuu ilaabaa. waxay u baahan tahay waxaad ka faa'iiday inaad qorto. 2 qaab dadku mid unbay isticmaalaan. ama buugga laftiisay jaldigiisa ku qoraan, intay soo rogaan jaldiga bage walba wixii uu ka akhriyey, ama cards bay samaystaan ay wax ku qoraan, ama notebook uu iska sito oo ku talagalo buug kasta uu akhrinayo wixii uu ka faa'iiday inuu qoro. weliba waxa fiican iyadoo mufaharasa inaad qoratid, yacni iyadoo funuunta u qoran. wixii aad buuggan ka faa'iiday masaa'il fiqiya ahayd inaad fiqiga ku darto, hadday masaa'il science ahayd inaad bejka science ku darto, hadday masaa'il taariikhiya ahayd inaad meesha taariikhda ku qorto. fawaa'idda inaad mid walba gaarkeeda aad u qortaba ku fiican tahay. waxaa kaloo fiican siiba wakhtiga wax la baranayo, buug kastoo aad akhrido ishkaalaad iyo madmadowba kaaga soo baxaya iyo masaa'il aad hore u fahmi weyday. inaad qortid masaa'ilka aad fahmi weydo oo aad markaasi kula noqoto, ama kutub kaliya buga kaloo aad ka baadhayso, ama murshid aqoon-yahan aad ku tiirsan tahay oo fanniga kanaad wax ka weydiiso, ama calal aqal sheekhan cusub ee iminka dunidu wax weydiiso.
sheekh google soo taqaaniin google haddaad ku dhufato jawaab kasta waad soo helaysaa tiro badan leh marka aqallu shay inaad isku daydo mas'aladii kaa hortimi ama mushkiladii ku qabsatay inaad dib u baxsii karto waxaana ugu fiican haddii subjectskaasi aad akhrinaysa aad u leedahay qof murshida aqoon-yahankaa roon waayo culammadii hore waxay odhan jireen alcilmu makhzuunun fii butuuni alkutub wa mafaatixuhu biaydi alculamaa bay odhan jireen waxaa la odhan jiray cilmigu wuxuu ku khasmadaysan iyo ku duuduuban yahay kutubta dhexdeeda ayaa makhsino oo lagu xidhay stoorku waa halkaa furayaashana culammada ah ayay odhan jireen ninka caalimkii wuxuu ku barayaa how to read iyo waxaanaad akhriyaysa sidii aad u fahmi lahayd idan waxay ku fiican tahay inuu qofku cid uu ku xidhma inay jirto waxay kaloo ku wanaagsan tahay qiraa'adu inay tadaruj yeelato koritaan inay yeelato marka hore kuwa fudud inaad ka bilowdo sabji kasta oo aad bilaabayso meel fudud inaad ka bilowdo oo da'daada iyo fahamkaagu ku salaysan dabeetana aad korto haddaad qiraa'ada ku celceliso faa'iidadu way ka badataa sidii hore yacni buugaad mar akhriday ama kitaabaad mar akhriday haddaad second time akhrido waxaad markii hore ka fahamtay wax ka badan baad fahmaysaa walidalik baa adiibkii weynaaye masriga caqaad la odhan jiray baa wuxuu yidhi saddex buug oo fiican inaad akhrido waxa ka sii fiican buu yidhi buug fiican inaad saddex goor akhrido yani saddex buug oo fiican inaad saddexdaba dul marto waad ilowdo caqaad wuxuu leeyahy waxa ka fiican buug fiican inaad saddex jeer akhrido waxaa kaloo waxyaabaha qiraa'aadka fahamka kordhiya ka mida siiba dhallinyarada marka la yahay in qiraa'a jamaaciya la yeesho dadku inay naadiye qiraa'aad yeeshaan club oo ama buug laysu diro maalan 10 chapter uu ka kooban yahay qofba inuu chapter soo akhriyo dabeetana laysu wada akhriyo laysu sheego waayo waxay keensanaysaa chapterka haddii lagaa sugayo inaad si fiicanna u soo akhrido si fiicanna u fahamtid khulaasadiisiina inaad qofka kale u gudbisid kuwa kalena khulaasadii samarigii buugoo dhan inaad si fudud u heli kartaan aqoontiiyo dadku isweydaarsanayo balliquu canii walow aayadii oo dhacayso dadkiiyo wax isgaadhsiinaya waxaa kaloo fiican bay dhahaan dhallinyaradu inta badan ariiqatulimtixaan qiraa'adkooda inay ku daraan inay wax iska weydiiyaan hebel buugga ma akhrida haa dabeetana la iswarsado oo wax la iska weydiiyo wakhtiga daraaddii masaladaan ugu dambaysiinaya waxa weeyaan inay akhridaan dadkii waaweynaa biografigooda masaladan aada ugu fiirso si himmadaadu ay u kacdo oo ku dayashadaadu ay u fiicnaato oo qiraa'o waxtarle aad u akhrido inaad akhrido dadka nawaabiqda ah ama dadka roonroon ee aqoon-yahankii dunida soo maray la yaqaanay ama muslim ha ahaado ama gaalba ha ahaado aqoon-yahanka rasmiga ee la yaqaanay biografigooda inaad akhrido amhilaan idin siinaya marka weliba amhila islaamiya aan idin badiyo alkhatiib albaqdaadi raxmat ullaahi calayh sheekhii la odhan jiray khatiib albaqdaadi oo baqdaad jooga ayaa safar waxaa ku soo baxay sheekh la odhan jiray ismaaciil ibnu axmed idariir oo nisaabuur dad ka yimi buu la socdaa makay ku socdaan baqdaad bay soo mareen waxaa ogaaday alkhatiib albaqdaadi baa ogaaday inuu magaalada joogo ismaaciil ibnu axmed idariir marka isaga iyo culamo kaloo wada socotaa u timi waxay ku yidhaahdeen waxaanu rabnaa kitaabka bukhaari inaanu kugu dul akhrino oo aad noo saxdid kitaabka bukhaari weyn aad taqaaniin waa 4 majalladood meelahaasi nin safaroo socota abaa lagu dul akhrinayaa ninkan safarkee socotada waxaa loogu dul akhrinayaa sanad caaliya buu haystaa oo bukhaari raawiga rasmiga kitaabkiisa wariya alfarabri waxaa ka wariyay isna kushmihani buu isagu ka sii qaatay bacda almaqrib bay u fadhiisteen khatiib albaqdaadi baa akhrinaya kitaabka culamada kalena way dhegaysanaysaa sheekhuna wuu tasxiixinayaa dabeetana
maqribkii baa la bilaabay ilaa iyo salaadii subax baa la akhrinayay waa la kala tegey habeenkii dambe maqribka laysu yimi ilaa iyo salaadii subaxee kale la akhrinayay sheekhi laakiin wuu safraya subaxii dambea loo yimi barqadii baa la bilaabay ilaa iyo maqribkii baa la waday maqribkii baa haddana la waday ilaa iyo salaadii subaxee dambea la waday intaasaa waxaa lagu dul dhameeyey 4 volume kitaabka bukhaari dhammaantii weliba qiraa'adu akhrinaya waxaa la yidhahdaa qiraa'ad degan oo la rabo dadkan kale kutubtooda inay saxdaan qiraa'ada lagu sheegaya waxa weeyaan rag baa kutub wada sita kitaabkiisa sani inaan wax qalada ku jirin buu rabaa inuu saxdo sheekhan xaafidka ah baa laga saxanaya oo kitaabka haya kani wuu akhrinaya markaa sheekhuna wuu dhegaysanaya kuwanee kutubtaa la saxanaya marka waa qiraa'o la wada dhegaysanayo dadkao dhan wada dheg yahay oo la soo jeedo salaad maqrib ilaa salaad subax salaad maqrib ilaa salaad subax barqadii dambe ilaa iyo salaadii subaxee dambe inta ka dhexle ayaa bukhaari lagu dhameeyey imaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa la weydiiyey arrinkaas maalinna sheekh adiga ma kugu dhacday baa layidhi min waaga berigiisii ilaa gabalka dhaciisii inaad wax akhrinaysay maalintii oo dhan inaad wax akhriday markaasuu wuxuu yidhi maya laakiin aniguba kitaabka bukhaari markaan sheekha ku akhrinayay 10 majlis baan ku akhriyay buu yidhi 10 fadhi oo aan la fadhiistay sheekha ayaan ku dhammeeyey ee fadhiyadaydaa kala googo'naa buu leeyahay haddii 10ka fadhi laysku dari lahaa wuu ka yaraan lahaa intii uu ku akhriyay khatiib albaqhdaadi 2 maalmood iyo badbu isna ku akhriyaa layidhi marka laysku daro wakhtiguu gaadhayay markaasuu intuu sii hadlay buu wuxuu yidhi laakiin qiraa'adaydu maxay ka gaadhaysaa tii khatiib albaqhdaadi marka laga eego buu yidhi xagga sixada iyo wanaagga iyo faa'iidaynta iyo gaadhsiinta dadka kale uu gaadhsiinaya la dhegaysanayay ibnu xajarkaas saxiixu muslim 5 majlis buu ku akhriyay baa layidhi waa kitaabka dhana saxiixu muslimka la yidhaahdo 5 fadhi ayuu ku dul akhriyay waxaa la yidhahdaa muddo 3 bilood ku dhodhow 2 bilood iyobay yidhaahdaan iyo bil uluskeed 1/3 of a month 3 dalool yani 2 bilood iyo 15 casho wax ka yar oo uu dimashq joogay bay yidhaahdaan 100 volume buu akhriyay bay yidhaahdaan 100 volume akhri karaysaa waa maxay 2 bilood iyo 15 casho ayuu ku akhriyay baa la yidhaahdaa 100 mujallad 100 volume waxaa laga yaabaa inaa leediin sidee waxaan loo akhrinaya horta ugu horrayn waxaad ogsoonaataa surcat alqiraa'a waa wax la barto maalan qofka cusub markaa wax loo dhigayo waxaa loo dhigaa letters soo maaha a b c d alif ba ta tha erayaa loo dhigaa markuu erayadaa qaybo suuraddaasi madaxa degto ayaa isku darkooda loo dhigaa al yani erayo 2 xaraf ka kooban saasaa loogu soo wadaa qofku markuu qiraa'ada baranayo xaraf xaraf bay ishiisu u qabataa alxamdu lilaahi saasuu wax u akhriyaa qofka cusubee baranaya marka dambe qofku waxay gaadhaa erayada tani inuu maskaxdiisa dego ishu markaa eray bay u qabataa haddii qofka lasii traingareeyo markaasi 2 bay u qaban kartaa haddii lasii traingareeyo 3 bay u qaban kartaa haddii lasii traingareeyo 4 bay u qaban kartaa xad bay ragga qaar sheegaan halka sadar in mar qura la akhriyi karo ishu qaban karto laakiin waxay u baahan tahay inuu qofku traininka qaato iminkaba koorsooyin bay bixiyaan meelaha kan lagu baro qofka fast reading ama surcat alqiraa'a lagu baro culamada tani say wax u akhrinayeen waxa kane waxay u noqdeen malako ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala walidalik alxaafid almuzi imaamka la yidhaahdo oo weliba la jooga baa la yidhaha alxaafid albarzaliy kitaabka la yidhaha almucjam alkabiir mucjam alkabiirku waa 25 volume 60 fadhi buu ku akhriyey 60 goora uu soo fadhiistay ayuu wuxuu ku akhriyey maxay mucjam alkabiir dhammaantii 25 volume alxaafid alciraaqi musnadu imaamu axmed
hadda markii la takhriijiyey la sii balbalaadhiyey waa 55 mujallo 40 kun oo xadiis wax ku dhadhow ku yaal bay yidhaahdaan ibn al-Khabbaz sheekh la yidhaahdo wuxuu ku dul akhriyey 30 fadhi 30 ballan 30 goor buu kolba la ballamo ku dul akhriyey ku dhameeyey yani waxaad garanaysaa dadka kani waqtigu qiimuhu ugu fadhiyey iyo qiraa'adoodu say surca u lahayd surca quramahay waxana u fahmayeen ibn Atiya tarjamada laga qoray qaadi Ciyaad iyo ibn Bashkwal labadooda kitaab al-Ghunya iyo Sila ay ku qorayaan wuxuu leeyahay waxa la tilmaamayo inuu leeyahay kitaabka Sahih al-Bukhari 700 jeer baan akhriyay haddaad akhrido مثلا رسالة وقري من شيخ سعودي وعلي العمراني ليلاده المشوق إلى القراءة كتاب ليلاده عجب بعض من السلف كوحو كسر نقلنا وحدا أركز البخاري مد لا بقولي كنت جربان دميي أخري قار لا بقولي سيدات جربان دميي قار لا كنت جربان دميي قار لا فرت جربان دميي إنك قف مر دميي من وجهه هل مرنت واخرين معك اخري حاجه كبحي ينا وحيلين كنت انشير لحدا شير بلا دمي الشيخ السلفي الشيخ الله يرضى وحده سمعت ابن طاهر يقول وحن مغلبي الشيخ ابن طاهر يرضى له كتابك الصحيحين كبخاري مسلم وياه هي سنن كابي داود تضبط شير بان غعنتا اذا كو قريبو لي انتو قري ايو ايبيي markaasoo qoray oo iibiyey waa volume-iska kitaab dawaagi hore madbacadi ma jirin suusama ogidin wixii caalam islaami kitaab yaalo dharag ba gacantooda ku qoray iyaga madbacad soo aha wuxuu leeyahay Bukhari iyo Muslim iyo Abu Daawud 7 jeer baan mid walba gacantayda ku qoray oo iibiyey Sunan Ibn Majah ayaan isaga 10 jeer baan qoray intii aan Ray joogay buu leeyahay magaalada Ray la yiraahdo waxa uu tilmaamayaan أبي الفرج ابن الجوزي مركا لغا ورمايو تاريخيسا waxay yiraahdaan waqtigiisa waxba muu dayici jirin maalintii bay yiraahdaan ilaa 4 buug buu qori jiray sanad kasta bay ku tilmaamaan konton volume uu gaari jiray wuxuu qoraa wuxuu akhriyaa dhamaaha waa wuxuu qorayay ayaa sanad kasta gaarayay bay leeyihiin konton ilaa 60 volume dashiisi nin ka mid ah wuxuu yiri waxaan arkay umrigiisu waqti uu gabagaba ahaa isagoo minbarka saaran oo khudbadaynayo leh katabtu bi isbi'ayya hatayn 2000 mujallad labadayda farood ee arkaysaan 2000 oo volume baan ku qoray isagoo leh 2000 oo volume ayaan labadayda farood ku qoray isagoo leh يعني ذاتك كان قراءته مثلا ابن منظور شيخ الله يرضى لسان العرب ديكشنري كانوا وين في عربي يعني كاله وديكشنري هادو وين لغايه مجلدو ده لسان العرب الله يرضى ابن المنظور محمد بن مكرم بالله يرضى بقي عيسى واحد هذا كتبت مطولات كو سو اختصاري انت وقبضا اختصار هو محي وكتاب بن انت اخرده ان تسوقبته او وحي كدغته كتبته اختصاريه محاكمه ده تاريخ بغداد وكنت المجلد وحكم ده تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق الله يرضى وسيدتهم فوليوم سيدتهم فوليوم بنتو اخريه سوقوبه كنتم فوليوم بنتو اخريه وسوقوبه وحلقه المفردات ابن بيطار انتو اخريه وسوقوبه وحلقه الماما جاهد كتاب كيس حيوان وحلقت الماما يتيمدي ثعالبي الذخيرة لابن بصام انت سو كتاب بلالي كتب تواوين كمدي انتو اخريب ودمان تتصوكوبا وحقد انتو قعنتي سكو قريبا اليين شنبغلا فوليوم ما هو حسيب سيدي كما ورمي هي كتابة قطي هي مراو حنسو قاطي كو قعنتي سيسكو قري شنبغلا فوليوم وقعنتي سكو قريبو كجيريودي اذا وحن لاني سلف الامه أما أمضة دكيدي هوري وحخرس iyo qoris xadkaas ka gaarsiinayeen qof qoduu 500 volume qori karo ama
dhowr majlis dhowr goobood oo soo fadhiisto kitaab 3 volume ama 4 volume oo ku dhameeyo sidee wax akhrisku la ahaa مثلا إمام البيهقي الحسين بن أحمد البيهقي وكتب تنتظر بدن له أي وحلة الماما يا أبو سعد السمعاني وحكوت الماما يا كتاب في سلالة التحبير في المعجم الكبير وحلق البيبوري البيهقي وحنون كدعي أو طبنك فرض بقوين حنون بقول دعي مركا انت موالة شرعي كعمو ويقوين oo kafka qori u soo haray wax kale ku soo harin oo intuu qalinka labada ku qabsado kaaqadku waa harageeray wax lagu qori jiray waraqa wax lagu qoro intuu dhulka dhigto cagta ku qabsado buu yiri wax qora oo faraad u qurux badan oo la akhri kara qora oo maalintii ilaa iyo 5 daqiiqo yani 5 buu yar maalintii qora buu leeyahay waa nin farwada go'ay way go'ayin haddana waxa uu qorayaa buu leeyahay maalin kasta 5 daqiiqaad min al-kaagid buu qorayaa buu leeyahay taas waxay tilmaamaysaa culamadii hore iyo mowqifkoodu sidoo ahaa idan qofka muslimka waxa looga baahayaa bay leenay haddaynu rabno inaynu wax baranno haddaynu rabno ummadda inaynu kor u qaadno haddaynu rabno jiilashii hore inaynu bedelno haddaynu rabno dunida maanta jirta loolakeeda inaynu ka qayb gali karno inaynu baranno in waxna la qori karo waxna la akhri karo inay qiraa'adu qofka ka mid noqoto noloshiisa caadiga uu ku xisaabtamo in qof kastoo muslimi maalintii ugu yaraan uu akhriyo maxay hadday qur-aanka tajis qur-aan uu akhristo hadday bukiskiisa ama daraasaadkiisa qofka muslimka inuu yeesho timetable wax ku akhriyo أو النقضة نلشي سعادة قراءة هي كتابة إنه وح رسمية كالنقطة وحن قد الله يمكا درس كرودة موحويانا إنه نبرانه وح أخرسك هي وح قرست هي كوعل علي رق قرمها رق يدمر بصا بيها جرين داتك مسلمين تهوري سامبا وحلو قرى جري سامبا وحلو أخري جري خطيب البغدادي قال ندين تلمامي ayaa maka yimi markaasuu maka wuxuu ugu yimi gabadh ka mid ah culamadii muslimiinta ee waaweyneyd kariima gabadh la odhan jiray ayuu ugu yimi kariima bintu axmed almarwaziya waa dumarkii xufaad ahaa gabadh ka mid ah caalimada 100 sano ay gaadhay may guursan waxbay baran jirtay ayuu u yimi kitaabkii bukhaari كريمينا وحي كقابة كتاب البخاري الشخص اسماعيل كي هو عدي وكقاطينا ينا السنة كيدو وعن الكشميهني عن الفربري دبتنا إمام البخاري أيو يمي وحلة الماما يدنا وحكود الأخري شن مع الموت أي صحيح البخاري كود الأخري وصحيح مالتي هركو أخري أيو كريمنا مر لبعض كتصحيح سنة يوكو أخرنا شن مالموت وحين تلمامي كرنا إخوتي في العقيدة ولما دي مسلمين تهيد أما مسلمين تيهوري نبي عليه الصلاة والسلام وحنا ما قريتشرين وحنا ما أخريتشرين إلهي سبحانه وتعالى معجزة وحوادة سواء وحنا قرين وحنا أخرين اللي قصوا وحي يتلى لا أخريه وودتك قارسيه إن يقول هذا اقرأ أول وحي كسو دقاو النقضة دبتنا مسلمين تويك فائدية وحيابها فكاهات كاهدان دين أخرية علماء المسلمين تهوري أحلة المامة يعني قراءاتك هي وحخرسك سيدا يومد مسلمين تادحدوا ضواها يوم غير عادية waxay tilmaamaan culamo wax akhris dilay wax akhris u dhintay waxay sheegaan culamo kutubi dishay fukahaadka markay ka waramayaan ahad ulama nahwiyin waxay ku tilmaamaan salaad jimco ka soo baxay dabatana salaadii jimco
masaajidkuu fadhiyey bacdal casar buu ka yimi baa la yidhi isagoo sii socda casarka dabadii ayaa caadadiisa waxay ahayd bay idhaahdaan xataa inta uu soconayo inuu wax akhriyo mooyaane inaan wakhtiga iska luminin waa masaajidka markuu soo baxay uu gurigiisa sii gaadhayo waddada inuu wax ku sii akhriyo waanu yaro dhaga cuslaa baa la yidhaahdaa isagoo wax akhrinaya oo dhexda sii socda ayaa waddo yaroo luuqa faras ka daba yimi dabeetana wuu riixay god buu ku riday bay yidhaahdaan oo uu madaxa ugu dhacay maalin labaadiiba wuu go'ay waxay yidhahdeen wuxuu ka mid yahay culammadii qiraa'ada u dhibatay waxaa ka mid ah jaaxid waxay yidhaahdaan kutubtiisaa ku soo duntay bay yidhaahdeen dabeetana weydiiyey waxay tilmaami jireen ragga qaarkood imaam zarkashi oo kale intuu maktabadaha yimaado wax lagu iibinayo oo kutubta ka ammaanaysto ayuu kumamkan meelahan waxa ugu jiri jiray bay yidhahdaan waraaqay ku sidan jireen dabeetana intuu kutubta meesha ku akhriyo ayuu qoran jiray axad alculamaa naxwiyiin waxay ku tilmaamaan salaad jimco ka soo baxay dabeetana salaadii jimco masaajidkuu fadhiyey bacdal casar buu ka yimi baa la yidhi isagoo sii socda casarka dabadii ayaa caadadiisa waxay ahayd bay idhaahdaan xataa inta uu soconayo inuu wax akhriyo mooyaane inaan wakhtiga iska luminin waa masaajidka markuu soo baxay uu gurigiisa sii gaadhayo waddada inuu wax ku sii akhriyo waanu yaro dhaga cuslaa baa la yidhaahdaa isagoo wax akhrinaya oo dhexda sii socda ayaa waddo yaroo luuqa faras ka daba yimi dabeetana wuu riixay god buu ku riday bay yidhaahdaan oo uu madaxa ugu dhacay maalin labaadiiba wuu go'ay waxay yidhahdeen wuxuu ka mid yahay culammadii qiraa'ada u dhibatay waxaa ka mid ah jaaxid waxay yidhaahdaan kutubtiisaa ku soo duntay bay yidhaahdeen dabeetana weydiiyey waxay tilmaami jireen ragga qaarkood imaam zarkashi oo kale intuu maktabadaha yimaado wax lagu iibinayo oo kutubta ka ammaanaysto ayuu kumamkan meelahan waxa ugu jiri jiray bay yidhahdaan waraaqay ku sidan jireen dabeetana intuu kutubta meesha ku akhriyo ayuu qoran jiray jaaxidkan waxay yidhaahdaan markuu si kale uu uga dhargo kutub garan waayey ayuu kuwa kutubta gada ayuu odhan jiray habeenkii iga kireeyaan meesha seexdee wuxuu rabaa intan caawa ah inuu soo jeedo isagu iyo buukskan akhriyo kirada uu kiraysanaya waxa weeyaan inuu isku dayo inuu buukska kan u akhriyo waayo matbuucada ma jirin kutubtu way yaraayeen waa in kitaabka markaad gadanayso nin naskha intaad u geyso uu kuu qoraa oo uu qoraa markuu qoro haddana waa in sheekhii kitaabka lahaa ama ardadiisii sanadka haysatay loo geeyo la tasxiixiya inaan wax khataa la qorin waxaa la qoray inuu sax yahay oo editing dambe lagu sameeya kadib markaasuu noqon karaa bug la ictimaado oo la akhri karo waa ilaa kitaab layska qorqoro kasta lama akhriyaynin waxaa ka muuqatay markaa dadka kani siday u dadaalayeen ama qiraa'ada ay ugu xoog badnayd ama wax akhriska ay wax u siinayeen wakhtigan casrigan aynu nool lahay ilaahay wuu fudaydiyey aad bay u fududaatay waxaan sitaa combyutar yaro kuwan yararoo laysku laalaabay intaan leeg hal maktabadoo igu jirta 13,700 oo kitaaba ku jira waa hal library yaro ku jira oo laga yaabo 20 gigabyte meelahaasi inuu yahay idan maktabad hoolkan fadhidaan qaadi kartaad combyutarkaaga maanta ku sidan kartaa wala fudaydiyey ay kitaabaad u baahato ayaad ama library ka soo amaahan kartaa ama nadka ka dhexeli kartaa isagoo PDF ama wax ku doona ku qoran ay kitaabaad maanta u baahato ayaad heli kartaa iyadoo la sharxayo oo adkiyo duubana oo nadka uu ku jiro ama jaamacadka online-ka ha yeeshaan oo lacag yar laga qaado oo memberka noqoto ama kuwan free-ga ah free softwares ka meelaha ku duubayana ku jira ay fanku doonaya ha noqdo maanta adigoo gurigaaga fadhiyo meel looga bixin
ayaad muxadis noqon kartaa oo mufasir noqon kartaa oo lugawi noqon kartaa oo saynisyahan noqon kartaa oo cilmi noqon kartaa xataa mawaadda iskuulka lagu dhigto iskuullada waxaa ku dhigataan iyadoo duuban oo la sharxayo macallinkii sharxayo sabrada ku qorantay ayay ku jiraan nadka luqada ingiriisiga siba haddaa garanaysaa waad helaysaa ay class from class 1 ilaa intaad ka baxayso ay subject ku jira chemistry physics mathematics wuxuu doonaa hada english oo lecture iyo duuban oo macallinkii dhigayo sabradana lagu qorayo aad arki karayso yani waqtiga maanta la joogo qiraa'adii iyo kitaabadiiba waa la fudaydiyey waxaad helaysaa wax kasta oo qoran wuxuu doona ha noqdo ay mas'ala maanta aad u baahato aad google-ka ku dhufato waxaa laga yaabaa markaad iska dhaafto lectureska yarar iyo waraaqa yarar la qoro iyo less than more than 20 books inaad hesho mas'alada ka warramaya oo PDF files iskaga dhex jira laakiin hamadii baa yaraatay dadkii baa hamadu ka dhimatay dadkii baan rabin inay koraan oo wax bartaan dadkii baa noqday u qaatay inaan waxbaba baran karin waxa laga doorbiday boodbood iyo cayaar iyo waxaan qiimo badan lahayn umamku maanta marka la qiimeynayo say u kala horeeyaan waxa lagu qiimeeyaa aqoonta say u kala aqoon badan yihiin waddamaa jira maanta dunida ugu horeeya aan waddanadoodu resource ba lahayn Japan maxaa resource yaala nothing resource ma leh laakiin aqoon bay leedahay aqoontu iyada resource marka haddaad aqoon leedahay adaa ah resource-kii rasmiga ahaa dariskan markaa dantii laga lahaa anaan u soo koobay wuxuu yahay inay barataan in waxna la akhriyo waxna la qoro in wax la akhriyo waxaad akhrideen culimada muslimiinta hore waxay odhan jireen qoraalku waa dabarka cilmiga bay yidhaahdaan xoolaha geela haddaad taqaanin dee si aanu kaaga lumin waxaa lagu xidhaa dabar iyo seetiyo shakaal xadhkaan geela lagu xidhxidho waa la xidhaa si aanu kaaga lumin cilmiguna si aanu kaaga lumin waa la qoraa waayo cilmi kastoo aad maanta fahamtay sanadkii hore waxaad iskuul ku dhigatay haddii maanta lagu weydiiye waxba kama xasuusinid markii waad fahamsanayd oo waad wada garanaysay laakiin maalintii imtixaanka aad ka baxday bay iyana evaporation qaadatay ayuu kaa duulay wixiiba haddaad se wax qorato waxa la qoro mar kasta waad raajici kartaa waad ku noqon kartaa wax rasmiya waxaan kusoo koobaya markaasi waxaa laydinka baahan yahay inaad waxna akhridaan waxna qortaan صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى وحن قبرنا إن ميزانك حسناتك وقدرة وحضرة قيم كأيد النسوة يا شيخ إننا ونقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه